بسم الله الرحمن الرحيم caawa halkan waxaan isugu nimid inaanu annagoo ah gabdhaha ururka sahal shucuubtayada aan ku muujino kacdoonka isbedel doonka gobolada maqan ee Sool Sanaag iyo Cayn maxaan ku dhahaa hadii Ilaahay ku rooyahay xasuuqa ka jirta dhibaatada ka taagan oo Soomaaliland ku hayso iyo dadka ay soo bush gareynayso oo maalin bashaatiga u soo galinayso inaanu ka hadalo shucuubtayada ku muujino baan halkan u nimid marka insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rabnaa inaanu ka hadalno waxaanu meesha u nimid barnaamijka iyagana aan bilaabano waxaan halkaan uga yeerayaa insha Allah gudoomiyaha gabdhaha qaranka Soomaaliyeed Faadmo Warsamahaabad ee UK dhamaantiin horta caawa salaamantiin inta meesha isugu timid gabdhaha ururka sahal anoo ku hadlahay gabdhaha magaca ururka sahal laftigeeda caawa halkaan waxaan isugu nimid inaan muujino shucuurteena ku aadan dhibaatada ka jirta gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay ku hayaan maxaa la yiraahdaa maamulkaas Hargeysa Somaliland la magac baxay waxaan aniga aan rabaa caawa halkaan fariin ama codsi inaan u soo jeediyo isimada ku abtirsada sahal meel walba ay adduunka kaga nool yihiin wadankan la dayacay ummadan ma aragtay ku nool Sool Sanaag Cayn dhibaatada iyo gumaadka iyo caburinta lagu hayo waxay uga seexdeen ay uga hadlaayeen ama ay uga dhidhiilaayeen isimadan hortore aan caawtoos u abaaraya isimada Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sareyso la salaaxa malaha annagu wax aan maxaa aragtay cabashadeena aan u gudbin karno markaan fiirinay waxay noola muuqatay caaw inaan codsigeen u soo gudbino isimada meel walba ay ku nool yihiin oo sahal ku abtirsada ama America ama Europe ama Asia ama Arab ama Africa from Garissa ka soo bilow ilaa iyo Ras Kamboni ilaa iyo Kililka meel walba oo nin isim u joogo oo sahal ah waxaan rabnaa annagu waa dhibanahay haween hadaan nahay waxba ma qaban karno 7 sano ayaa dhulkaas niman kibir iyo edab darro ay u haystaan oo dadka maatid iyo caruur iyo haween maalin walba lagu caburiyaa wax ka hadla malaha waa la xasuuqa wax u dooda malaha annagu waxaan rabnaa marka ka haween ahaan wixii maanta ka dambeeya inaan ama bareeraha iyaga sheegano ama intina maqlayso oo oday ah arintaas ay galaan waxaan jecelnahay sida ugu dhaqsaha badan inay simada iyo cuqaasha iyo waxgaradka sahal inay arinta ka dhidhiyaan waxa meesha gumaadahay waa niman ayagoo kala ah waxa meesha ma aragtay xoog ku haysto waa niman aan ayaga ka awood badneen adoo qaran aan qabiil lama noqdo qabiil waxa ah nimanka jooga Hargeysa sahal waa qaran anigu waxaan oran karaa sahal waa qaran way ka weyn yihiin wax ma aragtay magaaladooda si ama dadkooda si ciyaar imaatidooda loo galo meesha waxa yaala waa niman siyaasad ma aragtay ku kala jeeda waxaan rabnaa ilma adeerayaalo wax walba nootihiin in arintaas aad gashaan nimanka isku haystana aad dhexda u xirataan dhulkaasna sida ugu dhaqsaha badan waxaan u leenahay ama ha u ekaado nin ma aragtay raabi ay la yiraahdo jira raabi cudur la yiraahdo qaba nimanka raabiyada qaba oo maalinba ku soo haliilahayo waliba ilaa iyo cadan tagaynaa in ay meel idinka qabato oo ku kululaataan annagu waa gubanay 7 sano ayaa arintan aan u dul qaadanayn mar dambana uma dul qaadan karno hadii kale annaga surwaalada xiranayna iyo shaararka dowlad goboleedka Puntland aad baan u taageereynaa maxaa la dhahaa madaxweynaha cusub isbedelka cusub ee ka dhashay Puntland hadalkii ka soo yeeray oo ahaa isimada in la isugu yeero waxaan idinka codsanaynaa 7 sano ama 2 maamul oo ka horeysay ba madaxweyne Cabdi Weli lahayd maxaa la yiraahdaa dhulka uu soo noqon haya alxamdulillah maanta adiga aad ugu celceliyay in wadankaas wax laga qabto waxaan ka codsanaynaa saad noogu ballan qaaday saa ugu dhaartay dastuurka arintaas sida ugu dhaqsaha badan aan ku jirin bil iyo labo inaad jaal madaxweyne waa ka codsanaynaa in arintaas aad gashid
la isugu yeero maxaa la yiraahdaa inti wax gasha oo sahal ka kooban in la isugu yeero arintaas la dhex galo oo dadkaas masaakiinta ah oo caruurta ah oo maalin walba aan maqlayno ama si gardarro ay maamulku nimankaas Hargeysa ka soo duulay ay u xirxirtaan oo shalaydaas aan arkayna haweenkii oo maxaa la yiraahdaa raggoodii iska xirxiran yihiin oo maxaa la yiraahdaa ganacsigooda iyo baabuurtoodii ay 10 jeer ay cashuur iyo ay ka qaadaan wax loo adkaysan kara ma aha waan idin magaxumo anagu arintaas maxaa la yiraahdaa waa idin magaxumo ma kaftami karno gabdhaha iyagu dadku ma la sheekaysan karaan maalin walba wadankiina la haystaaba meel walba noo taala waxaan idinka codsanaynaa wixii wax garad ah oo dhulkaas ay taabanayso yaan loo eegin nimanka siyaasadda wax ku raadsanaya ha u eeginina waxaan idin leenahay yaan loo eegin ha loo naxariisto waayeelka caruurta haweenka masaakiinta ah ee magaalada ku dhex jirta iyo maalin walba dhibaatada kalshaala ayadan ka soo noqonaysa mar dambe uma adkaysan karno haddaan haweenkana saan maanta u istaagnay waxaan rajaynaynaa meel walba oo nalaga daawanhayo meel walba nin walba oo sahal ku abtirsada in loo istaago dhulkaas sidii maxaa la yiraahdaa cawaandidaas raabiyada wada qabta in ma aragtay looga qaado waana salaamantiin waana mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynaynaa Fahmo Dhoobey oo iyaduna insha Allah taaban doonta shucuubta uga aadan hawsha meesha loo yimid أنا كهلا مقع سهل كان قبلها إن رير بدلان إن وحن إن عادي عاو إن مشان سوقني مت إن عرنتان إن صول iyo snack gabdhaha aan walaalahan ah oo maantito dhibaatadaas iyo loo geysanayo oo lagu kufsanayo meeshood ay joogeen markii la kufsadana la aasayo dhibaatada loo geysanayo caruurta maalin kasta loo geysanayo waxaan maantito aanu leenahay inaanan u adkeysan doonin sidaanu maantay u kacnay inaanu meel kasta u kici doono meel kasta aanu joogno haddaanu nahay sahal aan ku abtirsano waxaanu ka kacaynaa meel kasta oo Soomaaliya ah meel kasta oo adduunka ah anagoo maaragtay wixii ka dambaysa saacadan aan u dul qaadan doonin waxa maaragtay ka dhacaya sool iyo snack waxay noqotay wax badan baan aamusnayn oo dul qaadanay dilka iyo maaragtay ayo noo geysanayo marka intaas ayaan maaragtay ku soo gabagabeynaa anigu waxaan ku soo dhaweynayaa haddana mikrofonka Maryan Cabdi Bootaan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا قبلها ماشي السوق يمت وككوبان إن قبله سهل ما شاء الله وروح بدن الله يعزك وحن ربعين عن كهذا قبلها واحد لين ما شاء الله سيف عم بين واحد لين توب قيل ربعين أيجا بقى أصيبي بس وحن ربع وحيرنا قدرة هدي له يراده وحن ربع دتك السؤال إنسان أقول شيء إن بدن بيقبان أدبانا نقول حناي وحي رجيجو جران ويانا رنتي أنا جران إنما أنت هدي له يراده الله يسوق أي خصبي وحوي علنا ومقدنا عذنا مقنا marka gabdhihii qasab bay ku noqotay meel ay joogeen ba inay soo wargaliyaan inta iyadaan markii la arkana kuwa badan baa nagu dayanaya adduunka dhibaato weyn bay qabaan dadkaasu waxaan rabnaa hadda wixii laga bilaabo in loo soo jeensado haddii aan ka soo noqdo waxaan rabaa sool iyo sanaag dadka u dhashay iyo cayn iyo Puntland waa dad walaalo ah waa dad isku aftirsada waa dad maxaan ku sheegaa isku dhaqana waa dad isku ehela waa dad isku hayb ah waxaan doonayaa madaxweynaha xafidullah Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waa isagii yiri shir baanu cilaaminaynaa waxaan doonayaa meel kasta oo ay joogaan isimada runtii sahal balse daarad baan anigu dhihi karaa wax looga laalaabanayo ma garanayo sida runta meel kasta oo ay joogaan waxaan jecelahay shirkaasayto madaxweynuhu cilaamiyay inay ambaa qaadaan dadkaas dhiban oo dhibaataysan gabdhaha maalin walba naasaha la goynayo oo iyagoo nool maxaan ku sheegaa la xabaalayo oo jeelalka ku jira Mandera
jeelka Mandheera waligay ma arag balse waa maqla waxa ku jira gabdha anigoo kala oo igu abtirsada waxaan jeclahay in ayaga iyo wixii lamida ya odayaashooda cuqaashooda madaxdooda isimadooda islaamadooda maxaan ku sheegaa boqoradooda xafidullah inay intay gogol dhigtaan ya garaadadooda intay gogol dhigtaan ay aqaawibkooda ka shaqeeyaan madaxweynahana waa farkaliya fool ma dhaqdo haddaysan intaas iyo shacabkiisa ilaahay uusan u khasbinin oo gogashaas aysan maxaan ku sheegaa la bushgaraynin waxa weeye madaxweynuhu wuxuu qaban kara male balse haddana wuu ilaamiye meel kastoo aynu joogno xataa qurba joogteenu waa inaynu si lixaad leh mar labaad iyo mar saddexaadba aynu u anbaaqaadnaa arrintaasayto insha allah tacaala mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan jeclahay inaysan arrintaanu intaanu ku dhammaan dadkana fiirsanaya adduunka meel kastoo ay joogaan hadday tahay Jubbaland iyo hadday tahay Puntland iyo hadday tahay maxaan ku sheegaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo hadday tahay Gaariso iyo Kenya even waa in isku si looga dhiidiyaa arrintaasayto uma dul qaadanayna maalin walba hanjabaada wiilka yarka ah oo madaxtooyada ka shaqeeyo xirsi la yiraahdo maalin walba hanjabaada uu suubinayo uma dul qaadanayna aad baanan uga siqsiqaynaa insha Allah tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay isku xirmaan daarood Ismaaciil salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fartuuno insha Allah iyaduna rabta inay taabato kor istaagto arrinta meesha loo yimid bismillaahir rahmaanir rahiim halkan dhammaan waxaan ka salaamayaa gabdhaheena iskugu yimid iyo kuwayna ka maqan gudaha iyo dibadda dadkeena aad baan u salaamayaa meel kastay joogaan anigu waxaan ka hadlayaa dadkeena waa inay noqdaan dad isku xiran haddii ilaahay idmo waxaa jira la dheeldheelsanaya laakiin aan dheeldheel gelinin waxaa jira la yaryaraysanaya laakiin aan yaryaraysi gelin waa badan yihiin arrimaha afar tagsa ama soo noqnoqda ama maaragtay na dhiba marka aad iyo aad waxaan uga codsanayaa meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waa dad walaala waa dad ehela waa dad darisa waa dad isdhalay haddana waa la kala leeyahay deegaanka waa la kala leeyahay dhulkan Ilaahay baa qolo walba ku abuuray meesha ay degan tahay inay amni iyo walaalnimo ku heshaan aad iyo aad bay u fiican tahay runtii goboladeena maqan meel kastaan joogna aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay rag iyo dumar walaalaheena Somaliland waxay ka dhiidiyaan oo ka gubanayaan oo Soomaali uga runtii waa dhibaato loo geystay bay dhahaan dad walaalahooda dariskooda is dhaleen inay dhibaato u geystaan oo maaragtay ay dulmiyaan ayagana waa laga fiican yahay marka anigu halkaas waxaan ku soo gabagabeyn lahaa sheekadayda in maaragtay laga fiirsado in darisnimada la ilaasho in dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma maaragtay dhashay dagaalada aan la dagaal gelinin in qolo walba waxay raala iyadu ku tahay oo ay jeceshay laga afqaado khaatumaysteed waa dhul u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland abtirsiyo inkastoo afar sac laga hadlo haddana waa dad xora hadday Somaliland raacayaan iyo hadday Puntland raacayaan iyo hadday khaatumo noqonayaan laakiin ayagii oo hadda u taagan ayagu magac samaystay u taagan magaca khaatumo qolana dhulkeeda khasab kulama haysan karto qolana kuma soo duuli kardho waa xor magac bay samaysteen meel bay degan yihiin anigu waxaan ku talin lahaa oran lahaa meel kastoo la joogo dadkaas in madax bannaan la siiyo ayagu hadday meel raacayaan oo meel go'ayaan ayaga u tal laakiin madax bannaani xornimo in la siiyo oo dalkooda iyo dadkooda iyo degaankooda ammaanka loogu dadaalo aad iyo aad baan taas u xiisayn lahaa una jecelahay una doonaynaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxweynaha Puntland iyo cuqaasha Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo cuqaasha Puntland intaba arrintaas كل أنك دمر بان هذا دمر واسكك عيا وحربان واسكش شيئا لكن أيها رجع سيدا يكون حسين لهاين سيدا يكسو جبين لهاين سيدا أجمر لهاين سيدا تكول علىها هدي أي وناق ربنا وناق ولا رقم لهاين هدي حمان ربنا ده قفل باب حمان تقف نقف حمان كوما ما ركتي كيني كرا كوما نقص بكرا ayaga u taala sida ugu dhaqsiya badan oo ugu maaragtay wanaagsan oo ugu maaragtay aan dhibno ku imaanin oo maanta dhib ma jeclin runtii Soomaaliya dhib waa ka soo daash dhib ma jeclin oo nabada oo wanaaga oo walaalnimo oo islaamnimo oo ehelnimo oo darsnimo in wixii loo xalin karo loo xaliyo qol walba dhulkeeda iyo dadkeeda iyada ay xor u noqoto aad iyo aad baan u jecelahay una soo dhaweynayna una doonaynaa salaam baan dhamaantiin in gaarsiinaynaa gabdheena halkaan iskugu nimid oo ka kooban dhamaan Puntland Khaatumo State Jubbaland
كل جو حنبلية واسا ولا درين يا كل الكشنات يا جارسو كل جو وان اسكو جرنا waxaan doonaynaa arintaas sida ugu fiican ugu macquulsan ugu wanaagsan in loo dhameeyo looma gabagabeeyo loona soo xiro arintaasna aad bay noo dhibtaa dhigahna ugu soo noqnoqsa dadkaas xornimadooda in la siiyo dhulkoodana looga kaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هادنا waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah roodo jaamac roodo Jubbaland insha Allah welcome بسم الله الرحمن الرحيم أنا كهذا قبلها مجا سهل وجبلان waa ka xunnahay dadka masaakiinta ee ku nool sool iyo sanaag iyo cayn iyo dumarka iyo ciyaalka 24 saac lagu bahayo hadda waxa la sheegay gabar in la xoogay oo la reeb gareeyo oo labada lugood laga jaray marka aad iyo aad baan uga xunnahay hadii dawlad la sheeganayo ama xukun la sheeganayo dadka shacabka ayaan la xasuuqin oo wax la yeelin waxay noqonaysaa taariikh adduunka oo dhan aan u gudbinaynaa birjaradaas oo dhan aan qaadaynaa waa la soconaa not only the first night waxaan aan ka hadlayno way soconaysaa inta ay ka kacayso dawladda Somaliland oo Somaliland isu sheegaysa inta ay ka kacayso ama maamulka Hargeysa inta ka kacayso meeshaas anaga ma joojinayno waa ka hadlaynaa haddaan nahay gabdhaha jaariyada Jubbaland marka بإذن الله كريم وعشو وحن كبرينا أيجانا إنه دتك دبعتها كدايان حسوق كدايان ريبين كدايان وحول بوا للصعنا أدوك ده على ذي سميل بأنجوجنو قبلها سهلنا وعي للصعدان من جوجينينو سومالوين لنا وعي كهذا ليسا وعي كهذا ليسا وأنا كسوهر جينا والسلام عليكم ورحمة الله هدنا فرحية سعيد إن شاء الله با نوتا تابنتم السلام عليكم أنا كهذا يوم قبلها سهل ولكن ميكروفون ما قبصن عاوة كهر لكن عاوة وحن ربا إن عن كهذا مبدئي يودم على جوده هاللي أنا وحن ربا إن عن كهذا مدحينها الصومالية مدحوين الصوماليات بالشجنية صوماليا الحكومة بولاية هي علن كي صومالي وتا كتوق صنايا بالبلد تاجين هي علن كاس يا كاني أرد ولي ما يسوي دي وحكانتي سوليا سناك يا عين وماشي أسدو هالكنتي وماشي يقول علن كصوماليا كانتي marka wuxuu ugu abaalguday in la xasuuqo in la tirtiro in gabdhahooda la kufsado inuusan ka hadlin marka halkaas waxa ka muuqata hadaan nahay gabdhaha sahal ama dabeesha daarood Ismaaciil inuu la jiro maamulka Hargeysa ugu taageerayo inuu dhibaatadaas ku hayo shacabka laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa guul rakaaga dambeeyo guul maaha qaatumo ama sool iyo sanaag waa la yaqaanaa waxaan filayaa inaysan maamulka Hargeysa inaysan ku joogi doonin saas لكن سولي سناقنا waxaan dhihi lahaa kalmad waxa idin ku soo noqnoqota xagga jirtaan ya laakiin kalmadaas waxaan dhihi lahaa inaad ka xoroodaan tobanka caada qaate maamulka Hargeysa u taga inaad ka iska qabata bannaankana iska marisaan ingiriiska waad bannaanka marisaan I don't think so toban caada qaate iyo maamulka Hargeysa inuu idin ka qaadayo ya marka waxa idin rajaynayaa ilaahay guul iyo cadowga inuu idin ka qabto dhibaatada idin ka dulqaado odayaasha daarood oo fiirsanaya dhibaatadana waxaan leeyahay waxa la yiri Soomaalidu waxay dhahdaa ninka geerida walaalka jecel murugo wabko gaawde marka hadda isleedin Soomaaliya sanaag buu ka ekaanaysa Soomaaliland ma ku ekaanayso I believe that marka guul baan rajaynayaa Soomaaliya sanaag ilaahay dhibta ka qaado ayagana meesha ka kaceen I think tobanka caada qaatay Soomaaliya iska naqana qabiil baan nahayo nin walba nin buu ka dhashay marka nimankaas nimanka reerka ay ka dhasheen inay banaanka iska dhigaan inay tusaan inay caaqda qaatay yihiin inay dhibaatada ay ku hayaan ogaadaan marka Soomaaliland nimanka la baxay maamulka Hargeysana 1991 waxay dhahan waxaan qaadanay freedom ama Soomaaliya ka baxnay iyagoo ka cararaya daarood bana lahay laakiin daarood bana dilay hadana daarood baan rabnaa inaan gubaysano waa impossible wax adduunka dhici kara taas ma soconaya taas ku seexaneen I believe in idin ku seexaneen laakiin insha Allah dad badan oo hadda hurday waxa ay tiinka inay kacayaan dhibaatada in laga kaco in dadka laga xanuunsado in gabdhaha la kufsanayo ceelasha lagu ridayo Xasan Sheekh Maxamuudna waxaan dhihi lahaa Soomaaliya baad madaxweyne u tahay ilaahaygi ku abuurta ka cabso waad dhaaratay Soomaaliya u dhaaratay cid qabriga kula galisana ma leh marka ilaahaga u noqdo assalaamu calaykum الله waxaan microphone ku soo dhaweynayaa inoo gabagabeynaysa barnaamijka
qofta la yiraahdo Faa'ise Maraweyne oo ah gudoomiyaha gabdhaha jaaliyadda Puntland. بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بأمهات سنتهين قبلها إن شرفت له كو أبتر صدا سهل إن إماتك آد أجيبتين إذن كوسو ضيعي عرورتي يقري أكتمادين آدنا أرن كان آدي آد أعلس أو وين يو كعدون كان باللوضي سيدي لو حرين لها سولي سناقي عين wax badan baa laga hadlay aad iyo aad baa looga hadlay laakiin waxaan ku darayaa dadkani sooli sanaag u dhashay dad la gumaysan jiray ma aha waa dad hore gumaysi u diiday wadankan ay maanta aynu joogno ingiriiska ah waaga aynu qoraxda ka dhici jirin waa dadkii micnaha banaan mariye weeyaan marka reerkan maanta maamulka sheeganaya waxaa weeyaan iyagoo waaga la safnaa oo micnaha in dadkii maalinta muxuunaha dabada ku watay ahaa dadkan cadowga ah ma dhici karto in ay maanta intaa iyo dadka ay wataan ooba kaba sii daranba in ay deegaanada sooli sanaag ay dhibaato ku hayaan waa waxaan loo dulqaadan karin waa wax loo baahan yahay in meel walbaba oo la joogo ilmaha ugu yar oo saqiirka ahna uu ka dhidhiyo waana sidii kacdoonkan u bilowday insha Allah billahi kariim marka waxa weeyaan dadka gudaha joogana waxa laga doonayaa waanu ognahay inaad daasheen hadda caruur ahaan lahaydeen hadda dhalinyaro ahaan lahaydeen hadda haween ahaan lahaydeen laakiin insha Allah billahi kariim wax badan baa la ina dayacay dib dambe insha Allah uma dhacayso dayac dambe sababtoo ah waxa weeyaan isma la eka reer isla eg ma aha maamul dawladnimada ku faanaya taasuna sii dheer tahay marka waxa la yiri cidna uma maqna ceelna uma qodna waxa la sugayo waxa weeyaan dadkan ku abtirsada haday degaan raas Kamboni iyo raas Asayr badda cas ka bilow ilaa iyo Bambaaso afkeeda magacan sahal baa degan halkay ku ogyiin deegaanadan sooli sanaag war miyayna damiir lahayn war miyayna danqaynin war gabdhaha la caburinayo iyo raggan caliqaataha oo hormuudka oo dabaqoodhiga ah oo dhulkeeni loo soo adeegsaday war miyaan laga fikiraynin mustaqbalka caruurteena war waxa iyagu ay helayaan way u baahan yihiin ya insha Allah billahi kariim waa siday u bilaamatay waxaa loo balanaa horeyn degdeg ah iyo kacdoon la kacay baa noo balana war haday ahaan lahayd dadka dega Gaarisa waa magac sahal weeyaan NFD haday ahaan lahayd Jubbaland kiilinka war ilaahay baana balaariyay war waa maxay dulmigan iyo la isku eeganayo war miyaa nafsi laga baqaynin ya gada Jubbaland ka mid tahay inta uga saartay war miyaana laga baqaynin oo macnaha nafsi aynan ahayn inaynu ku eegano insha Allah billahi kariim waxa noo balana xoreyn iyo kacdoon baa noo balana salaam alaykum TV kalsana uma hadinaya iyo wiilka habareerta u ah